kulankan wadajirka ay yeesheen gudiyada joogtada labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ajandihiisu waxa uu ahaa ka tashiga xilliga uu furmayo kalfadhiga baarlamaanka ugu horreyn gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa kulanka ka hadlay waxayna ku dheeraadeen ka hadalka duruufaha uu baarlamaanka u furmi waayay xilligii loogu talagalay iyo xanuunka COVID-19 ayaa u qorshaystay marka arrinkaasna waxaa rabaa in fikirkiina aad ka dhiibataan wixii laga samayn lahaa waqti adiga waan ku jirnaa marka qof waliba bal fikirkiisa in loo dhiibto waanu helo ayaan u baahanay waad mahadsantahay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo senatarada ayaa si kala duwan uga hadlay xilliga uu furmayo baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenada labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xildhibaanada iyo senatarada sharaxaad uga bixiyay howlaha baaxadda leh hor yaalla baarlamaanka federaalka Soomaaliya fikirku waa lagu kala duwanaan karaa qaybna ma aha laakiin xaqiiqdu waxaa waaye 6 bisha baarlamaanka haddii la furo waxay u baahan tahay 6daas lafteedu waxay u baahan tahay meesha lagu furaayo iyo security iyo shaqooyinka laftooda u baahan tahay waqti in la qaato waay annagaana ka shaqeyna waxaas oo garanayno oo aan ku qaban karno meesha waxaa waay inaan isla aadno waay waxa dhabta aan isla aadno waay saaxiibyaal 6 bisha in la furo baarlamaanka taasay sax ku ah afarta qodob oo loo diray guddiga isku dhafka ee baarlamaanka waa 4 qodob oo xasaasi ah waa 4 qodob oo culus oo ilaa maanta aan dareemayno qaar kamid ah inay xal u heli lahayn ilaa maanta aan dareemayno waxaan hubaa markii baarlamaanka la furo 6 bisha oo la inii keeno qodobka ugu horeeya in aad maaragtay ku qaadan doonto 3 bari 4 bari kan kale intoo kale midka kale intoo kale sababtoo waxaan ognahay astaynta kuraasta doodeedu say u culus tahay ma ogidiin laakiin qof kasta adinkan kamida waa diidi doonaa aragti cusubna keeni doonaa kootada gabdhaha sida la yeeli doono gabdhuhu waa kala safan doonaan oo gudoonku markii ugu horreysay shiray waxay ahayd markii ay guddiga isku dhafka la shiraayeen maanta uu xigtay oo shirkan guddiga joogtada ah meel lagu shirayo ma aanan go'aanin ma garad waxa weeye agabkii loo baahnaa iyo wixii idinku u baahnaydeen si aad u shirtaan nooma diyaarsan waxa weeye consultationkii madaxweynuhu waa dhiman yahay oo waqtiyada uu bixiyey waxa waaye waxay u baahan tahay laftigeedu qiimeyn على حاصل اللي بعناه ده هذا اللي إحنا بشة الشيء جي ده يعني قاب ما نقول هو أنا قلنا أنا شقدي قبلنا وهذا حكاية شيء ده جود بتشوجان وحوي حكاية ده بتشوجان الدون كدافيس كل مقيم وقدام بين جدونك أي سوج دي إن لا عضيو وقت جا برلمانك أو فرميو يحل جا جود جا دورشينك أي هور إيمانه ين برلمانك عد قعتاجا أي الله قاضي وحنا نتيجة كل واقعي gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan 6 bisha in kalfadhiga baarlamaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka uu furmo waxa ogol u codeeyay 24 waxa diiday 3 hal qof ayaa ka aamusay 27 ee bisha June in baarlamaanka ay hortimaado ama uu hor yimaado guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka ay halkan warbixin ka jeediyaan waxaa ogol u codeysay 27 waxaa diiday 2 wax ka aamusay ma jiraan fadhigan waxaa sababay xilligii loogu talagalay furitaanka baarlamaanka uu qabsoomi waayay maadaama uu dalka ka dilaacay cudurka coronavirus oo aan la isku imaan karin balse go'aankan ka soo baxay gudiyada joogtada baarlamaanka ee ah in la furo kalfadhiga 6 Juun ayaa waxa baarlamaanka hor yaalla sharciyo muhiim u ah dalkeena Soomaaliya Maxamed Nuur Maxamed Shariifka warbaahinta qaranka Muqdisho